بني آدم كمردي بوايو لكن بني آدم كوحكوك لقدسان يهي سيدو أمارة يدفتيسا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أولا ليال إن شاء الله تعالى ندوده بان علماء وفريا وحسونا يدين شيء مايو وقتنا واسكا كوبانيي waxaan nus saac ka yar baa ka hadhay salaadii waxaan isku dayi doonaa wax kooban inaan ka idhaahdo wax mashaakilkeena yawmiga ka mid ah oo ah mushkilat al-ikhtilaf wa tanazul dibta kala taganida iyo muranka iyo iskhilaafka oo ummadda muslimiinta guud ahaan iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaanba si xoogan u haysta xanuun la daaweyn kari laayay ah asalka bini aadamka waxaynu ognahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala sidoo inoo abuuray inay tahay at-tanawwu inaynu kala gadisnaano kaasi wuxuu ka mid yahay khalqiga alle subxaanahu wa ta'ala mid madow mid cas mid indhayar mid dheer mid gaaban waa mutanawwic baynu nahay sideenaba waxaynu wadaagnana waa wada leenno bini aadam baynu wadanay sida aragtideena iyo wajigeenu uu kala gadisan yahay ayay in badan maskaxdeennuna u kala gadisantahay bale unugyada jirkeenu ay u kala gadisan yihiin idan hadaynu bini aadam nahay waxna waa wadaagnaa waxna waa ku kala gadisanay inta haddana waxa sii dheer ahdaafta iyo gooliska iyo waxyaabaha aynu rabno inaynu nolosha ka xaqiijino oo marar badan kala nooc noqda masaalixdeena oo iska hortimaada inaynu kala gadisnaanaana waa mawduuc al-imtixaan waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay inugu imtixaamay ee aakhiro sidaynu u manage garaynay u maamulay leena weydiin doono maraday aaraadeenna afkaarteenna baahiyaheenna masaalixdeenna xuquuqdiyo waajibaadkeena saaran ay waxaasoo dhami kala gadisan yihiin ilaahayna quraanku inoogu tilmaamaya waxa rabbi leeyahay ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة إلهي هدو دون يدد كوردن كونك كنا النوع قلوك ديجلها أمة واحدة وحوال بوداكته أو وحبيسكو خلاف لكن إلهي وحلي ولا يزالون مختلفين كما الزول يعني نيك لقدسين إلا من رحم ربك انت قال لو نحرسته تلدودي عقل جودي الرأي جودي الدين تودا ما يسموه يعني ولذلك خلقهم بإلهير اختلاف في الرحمة أبا والله أبو ريبا الله تلمام يا سبحانه وتعالى إذا بني آدم كو سوك لقدسين يهي أي هدنا وحب بني آدم كو أوجي يهي مدن مضو يودا تشركو إن مركز تكفى إذا بديهن كلا تجا هذا هردم بتاعك جارهان ضدك يجو إله قرى رب قرى وذا عابدا عبادات قرى الله وضي ما دس قرى كوا إلهي وحكت المام وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون يفعبدون أمة واحدة باتين با إله إلهي أمت كلية أمة متوحدة لم أهرن أمت مدايسن لم يدايبات مركو هربا أصل هم با أمة كليتين ربكين كعب صدا من ربكين عابد بالله سبحانه وتعالى أيها الأحبة بني آدم كوة الشركة دنبو أركا
بني آدم كمر مو غني النقدان مجره وذا شركه يمدن مضو وقوة معنوية وأنا قوة مادية وأود حق معناهان يا سايكولوجيكال هان وأود مادية هدي سياستي هدي دقالتي هدي دلتي هدي دطاي وأود ما أنت عصر غير شغله مثلا دولة دا وحوق بدن له مريكان وحلا هذا GDP وحصارك وضنكو وحمر يا شنيا لباتن تريليون سنتكي لكن وحو أركينا وهدنا يسكف اللين وباهن يهي ورور دقالة ورور صداد ضد وصاد ضمو ورور عسكرية وكتر سنادو تحالفات إنه يشو isagoo tariyahaana boqolaal milyana dhaqaalahaana 25 trilyan wax soo saarka sanadkiisu yahay Yurub iyadoo dawlado yar yar oo marka dunida loo eego xoogan 3 trilyan 2 trilyan 4 trilyan soo saar leh haddana waxay aragtay dunida maanta la joogo inaanay waxba ka noqonayn inay isku ururta mooyaane markaasay soo tagtay iyadoo wax soo saarkeedu 15 trilyan yahay maraykan 25 kiisiyo 15 ka kale arka intuu isku daro inuu dunida kale ku gumaysto jayno dunida u tira badan oo wax soo saarkiisu 18 trilyan ka badan yahay dadna u tira badan baa arka isna inaanu kaligiis ku filay kasoo raadiyeysna inuu wax kala abuuri karo saawgeed buu samaystay BRICS India ودلكي لبعض أما كواد بنقول يترى أهان إنه كدر صدو برازيل إنه صدره ساوث أفريقيا إنه قدره إيران إنه قدره لبعض هرم موياني حتى قاردها ما وداعان وكل دركسي دت كان تاسو قاردات كنا البا وحي أركان تحالفات ككلين أنا إسكت عنكرين إن ينا محي إن يسوق تجان موياني لكن مسلم كلا يري أمة واحدة باتهين لحية كنتن دولة دود بمرية بل لحية كنتن كاسي أيام كوكنا عسنين إن يسيو دا شوغان أسيك في القمية والله دي هرد دي سكود دي أيانين أوروران كواني وحي رمانين كلا في القمان والصومالي وليبيا والسودان وسوريا وعراق وانت كلا هوستك جو حيسا marka waxaan leenahay lababa inaynu si dhab ah u rumayna bay u baahan tahay dunida inaad wax ka noqoto inay ku xidhan tahay tiradaada iyo tayadaada iyo dhaqaalahaaga iyo waxaaga taasina inaad wax iska dhicin karin inaad cid badan tahay dhaqaale iyo dadba mooyaan dunida maanta la joogo beelan noolaan maayaan inagu beelaynu nahay beelo nolol kuma leh marka khilaafkuna xun yahay wada jirkuna wanaagsan yahay waa fikrad aadanaho dham rumaysan yahay laakiin say u dhici kartaa saad khilaafna uga baxsan kartaa wada jirna u heli kartaa waxay u baahan tahay inaad xuluul raadiso waxaan xal lahayn ma jiro taariikhyahanada dunidu marka ay baaraan xadaaraadkii dunida ee dumay مثلا qarnigii 20aad inka ugu ballaaran ay yiraahdaan taariikhyahan buu ahaa Toynbee odaygii Ingiriis markii dambana Mareykanka noqday waxaan filayaa dhowr iyo 20 civilization ee dunida soo maray ayuu kitaabkiisa taariikhda kaga waramaya History of Civilization koob iyo 20 kamida xadaaradahaasi way dumeen toddoba kamidana waxba ka sii jiro ka nool دراسة أنت عليك مركز سمية وحكوك بجبية وورد كلية أو حدا الأمم تنتحر ولا تقتل قتلا ولا تموت قتلا أمضه
ويستلدلان يعني يدا استشاء الدبد لقمد لبوليه حضارات يوما كوحي ودين تنبولي وانتحار وبلغ قده هذا كبل عبنطوهم ومد انتهي هذا دركتبوا لي هي ما ها عوامش خارجيه oo kaliya waxa inta badan wax dumiya ee عوامش داخليه bay u badantay isagu tajaarib bina aadama oo daraasayo ku gaaray natiijadatan ilaahina quraanka si kooban baabuu inoo sheegay muslimiintii yiri waanu jabnay ilaahay wuxuu ku yiri qul huwa min 'indi anfusikum idinka xaqiina ka timi baa ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala dhibto idinka ka timi هو من عند أنفسكم سيدا وجد أيها الأحبة ما رأي دفتيسة إنه هذين الصومالين هاي ولو كفقنا هين إنه دفتنا ما رأينا مرر بدن حنا سيدا هذا ملا حل كنا كسر بدن دفتينا هي ستي قف بالدلاه دبتنا وحين كحل الله إن نتبدله يعني نبتني وحكسي فرح ماذا محي حلك أين وضنه مشاكل كاسي دولة دهنو هيستا أدينو كبت الممنوعين الدولة دنو كريا شعب كانوا هيستا ووح أينو كردينو حل إنو نقضه إنو سيرانو halka umamku ay isku dayaan inay dantooda soo ururiyaan inagu waxaynu isku dayaynaa inaynu sii filqanno waxaynu isku dayaynaa inaynu sii burburno xalka waxaynu u aragnaa ugu badani waa mushkiladu si ay u yaraato dadka aan yarayno xataa systemkeennii qabaliga ahaa ee caadiga ahaa baa qaabkaa noqday iminka waxaynu nidhaahnaa markaynu rabno beelweynta reer hebel baa shiraysa beelweynaba ma jirtee beela yaryar baynu nahay laakiin intaynu iskala saydhinay oo salaadiinta badinay oo cuqaasha badinay oo waxa ilaa waynu xalili kari weyn reerku markuu mushkiladiisu timaado uu xal u waayo waynu si kala go'aa xalku waa ka hadhow haddii aynu shir yara qabanno maalin oo aynu dhahnaa istifaacna ama maslaxa aan wada raadino ayaynu isku ammaanaan idhahnaa beelweyntii reer hebel baa shirtay oo waxaa soo saartay waxba kama jiraan waa mashaakilkii dadka kanoo xal loo la'ayay weli in la sii qaybiyo un mooyaane marka hadday reer tahay waynu sii qaybsannay hadday dowladnimo tahay waa sii qaybsannay hadday dadnimo tahay waa sii yaraanay hadday dhaqaalo tahay waa sii burburay kullu shay xagga hoose u socdaa waayo xalkeenna ka dhib badan mashaakilkeenna dadku wada noolaanshiiyuhu wuxuu u baahan yahay waxay yidhaahdaan dadka u hormuudka ahi ama nukhbada waxaanay ku tilmaamaan dadka u hormuudka ahi waa madaxda waa aqoon-yahanka waa culummada waa dadka kelmadooda la dhagaysta ee ummadda hor socda markay ummaduhu burburayaan waxay yidhaahdaan hormuudkoodaa gudha dabeetana dadweynaha kalsoonidooda lunta oo hormuudkaas saxidi ku kalsoonaan kari weyda dabeetana waxa ka dhashay bay leeyihiin in la filqamo waa saddexda mas'ale uu tilmaamayo Toynbee marka ummadu siday u burburto uu ka warramayo